بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داودyaal meel kastoo joogtaan iskastoo noo daawanaysaan waxaan nagala socotaan Gule Tute Show iyo sidoo kale Tute TV waxaan idiin soo gudbin doonaa kulamada furitaanka horyaalka dalkaasi Ingiriiska oo maanta markaasi furmi doona iyo sida markaasi qayb u noqon doonto kulamada la ciyaari doono wajiga koowaad iyo kulamada koowaad ee hadda bilaabanaya waxaan ku eegi doonaa kooxda kubadda cagta ee Manchester City iyo sidoo kale kooxda Burnley oo wada ciyaari doona kulan aad u xiiso badan natiijada ka iman karta Arsenal iyo Newcastle oo wada ciyaari doona iyo waxyaabaha laga filan karo Chelsea iyo Liverpool sidoo kale kulamada waaweyn ayaan eegi doonaa iyo qabiirada kulankan markaasi faalada ka dhibtay horyaalka dalka Ingiriiska ee Premier League ayaa ugu dambeyntii dib u soo laabtay waxaana caawa lagu daafuri doonaa kooxda difaacanaysa ee Manchester City iyo Burnley oo wada ciyaari doona waxayna ka mid tahay kulamada waaweyn ee markaasi la filayo in City ay u noqon doonto 10 lama ilaawaan hadii laga badiyo iyo hadii markaasi badiso sidoo kale waxa caawa la filayaa in kooxda koobka difaacanaysa Manchester City ee Burnley ka soo dalacday heerka labaad uu markaa tababaro u yahay kabtankii hore ee Manchester City Victor Company ayaa kooxdiisii hore isagoo macallin ah ka hor imaan doona waxyaabaha waaweyn ee kulankan laga soo xariiqaya ayay qayb ka tahay iyo waxa uu la kulmi doono dhigiisii hore ee macallinkiisa Pep Guardiola ayuu isagoo macallinka ka hortagaya mar hadii uu horyaalka ku soo laabtay waxa soo noqotay saadaashi isbuuca aheyd qabiirada ciyaaraha ay ka sameyn jireen natiijooyinka kulamada toddobaadkan ama toddobaad walba ee dhaca laga sameeyo falanqeyn qabiirka BBC Sports Jason Stone ayaa saadaaliyay ka bixiyay labada ciyaarood markaasi la ciyaari doono saadaasha oo sanadkii hore uu ku soo bilaabay markii uu bedelay Mark Lawson oo muddo dheer shaqadaasi hayay Crichton ayaa saadaalin doona dhamaadka 28 kulan ee xilli ciyaare waa 38 kulan ee xilli ciyaareedkan 2023-2024 waxaana ay ku bilaabi doonaa isbuucan oo markaasi 4 maalmood oo isku xigta la ciyaari doono horyaalkani Manchester City iyo Burnley ayaa lagu daafur doonaa toddobaadkan waxaana lagu soo xirayaa Manchester United iyo Wolves oo isniinta balansan garoonka Maximum Stadium Sutton waxa uu xusay in uu markaasi si bursinayay Burnley oo hoggaankeeda lagu dhaliilay halka Arsenal iyo Newcastle iyaguna min 3 dhibcood oo xoogan ay heli doonaan ciyaarta sida weyn loo sugay ayaa Chelsea iyo Liverpool iyaduna Curtis waxyaabaha uu markaasi ku saadaaliyay ayaan eegi doonaa iyo waxyaabaha kale waaweyn laga baran karo City Burnley iyo City waxa uu yiri waxa badin doonto kooxda Manchester City 2-0 kulanka Sabtida ayaa kulan kooxo badan ciyaari doona Aston Villa iyo sidoo kale Nottingham Forest 3-0 Aston Villa ayuu yiri Portsmouth iyo West Ham barbaraha la dhahay sidoo kale Carlton iyo Luton waxa uu yiri 2-0 Brighton ayaa ku badin doonta Everton iyo Fulham barbara iyo cagta u geliya 1-1 Sheffield United iyo Crystal Palace 1-0 Crystal Palace yiri Newcastle iyo sidoo kale Aston Villa Newcastle ayuu 2-1 dhahay axadda kulamada ciyaari doonaan Bamford oo 2-1 ku badin doonto Tottenham ayaana laga adkaan doonaa yiri 2-1 ay ciyaarta ku dhamaan doonta Chelsea iyo Liverpool waxa uu yiri Liverpool ayaa guush iska leh 3-2 ay ciyaarta ku dhamaan doonta kulanka ugu dambeeyay ee lugta hore ama kulamada koobaad isniinta ayaa la soo gabagabeyn doonaa Manchester United iyo kooxda Wolves kooxda Manchester United ayuuna guul siiyay oo sheegay in markaasi isbedel weyn ka imaan kara kulan ciyaareedkan aan eegi doonaa
waxyaabaha laga filan karo iyo dhammaan tartamadaas, waxaana horyaalkan uu yahay horyaal xiiso badan. waxaa la bartay kooxo badan cashir in loo dhigo bilowga ciyaarta, halka kooxo kalena ay guuldarooyin ku bilowda sida Arsenal oo waqtiga hore ku bilaabata guulo gadaal dambana ay markaasi Rangers noqota oo aan soconin. sidoo kale Liverpool oo uu hoggaanka qabata iyadana waxay noqotaa koox fadhiid ah markii ay soo gaarto kaalmaha dhexe. kooxaha waaweyn markaas sanadkan laga filan karo in wax weyn ay sameeyaan ayaa waxaa ka mid ah kooxda Chelsea oo si weyn isku soo diyaarisay, iyo sidoo kale kooxda markaasi Newcastle oo dardar xoogan sanadkan ku bilaabatay ayaa weli rajo wanaagsan haysta. guud ahaan halkaas ayaan kusoo gabagabeynaa barnaamijkeena aan uga hadlaynay kulamada laga ciyaari doono iyo furitaanka horyaalka dalkaasi Ingiriiska.